بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وعادل شيقو سقار. وحان سلام يا سومالي وين ودن وحان لهذا يا سومالي ذا سومالي جود. waxaad ogtihiin in cudurka coronavirus uu wadanka mar hore soo galay laakiin waayada hore wuxuu ahaa qunyar socod shalay oo ahayd 13 Abriil 2020 iyo daraad wuxuu soo ritay tiro aad u badan taas oo walwal weyn gelisay qof kasta oo mas'uul ah walaalayaal dawladda kaalinteedii way qaadatay waxaad moodaa maanta in loo baahan yahay kaalinta bulshada qof kasta oo Soomaali ah waa mas'uul wuxuu mas'uul ka yahay naftiisa ehelkiisa iyo bulshada uu la degan yahay waa inaan ogaanaa cudurkan inuu yahay imtixaan ilaahay uu nagu imtixaanayo waxaana looga bixi karaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo toobad keeno dembiyada aan faraha kula jirna aan kala baxno astaghfirta la badiyo wixii dhib oo cudurkan geysteen in lagu sabro dhaqaatiirtu waxay sheegeen in nadaafadda lagu dadaalo qofkii awoodi karo inuu gurigiisa joogo waan ognahay Soomaali badan oo aan dhaqaale badan haysanin oo aan guriyaha joogi karin ayaa jiro oo noloshooda ku xiran tahay inay socdaan suuqa tagaan waxa kulli looga baahan yahay qof kasta inuu nadaafadda ku dadaalo in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan u noqono wabillahi tawfiiq